الله تعالى وبركاته. مدشة ومدل ماموس له فخامة الرئيس المستقبل القريب إن شاء الله عبد الرحمن محمد عبد الله أياه ugu daaqay degmada Huluul ee gobolka Sanaag oo in badan u heelanayd in badan ciilanayd dhul qorfa oo badan ay ka kooban tahay abeesada iyo umusa midna aan gaari loo helin 7 sanadoodna kulmiye aanu ka baryayno laga waayay ayaa isagoo aan wali waxba ku guuleysan ayuu ballan u qaaday inuu degmada ku maamuuso gaari ambalaanisa xalay buu iibiyey waa taa laga shaqeeyay waa gaariga aad arkaysaan haddii alla ka dhigo kamarada waa ka muuqan doona gudoomiyaha ku soo wareejinaya bismillaahir rahmaanir rahiim wa sallallahu ala sayidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin dhammaan shacbiga Soomaaliyeed waan salaamayaa waxa halkan joogay wafdi ballaaran oo ka yimid degmada Huluul markii aanu gobolka maraynay wafdigu ama deegaanka odayaashiisa waxay naga codsadeen xisbi ahaan inay u baahan yihiin u doonana gaari ambalaansa oo ay muddo ka sugayeen 8 sano ka badan xisbiga kulmiye oo waqtigiina xisbi mucaarad aanu nahay laakiin ilaahay mahadii ilaahay baan uga mahadnaqaynaa inuu noo fududeeyay helitaanka baabuurkiina waa halkan taagan wax hadal badan ma gelayo laakiin waxaan guddoonsiinayaa furihii baabuurka waxaan noogu deeqnay shacbiga deegaanka qof uguma naadeeqin caaqilkana uguma naadeeqin wafdigana uguma naadeeqin laakiin waxaan ugu deeqnay hooyada iyo ilmaha iyo deegaanka ballaaran iyo cidii la isticmaali kartaba naga guddooma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قدومي وانو كا قدوني بلشاهان ديغانهان دلهان وانو كاغا قدوني آدي آدنا إلهي با مهد وكاغا مهد حلينينا مستقبلهانا وانو كلا شقين دونا وحي وحقبتا وانا كابل قدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته